laga qayb galiya maadaama aynan ahaan sidii loogu talagalay saxda ah aan ahaan wax saa u sii buuran laakiin boqolkiiba 20 waa laga qayb galiya dib u dhiska dalka dhalinyarada ayaa sabab u ah iyaga ayaa hormuud u ah iyaga ayaa tusaale u ah iyaga ayaa runtii wax muuqda la taaban karo ka qabta dalka inay dalka ka qayb qaataan dib u dhiskiisa haday tahay dhinaca aqooneed haday tahay dhinaca iska wax u qabso haday tahay dhinaca halganka ciidanka ay dalka lagu difaacayo dhinac walba oo dhalinyarada ay heegan u ah in dalkani ay dib u dhiskiisa iyo isbedelkiisa iyo horumarkiisa ay ka shaqeeyaan waa laga qayb galiyaa nabadeynta iyo dib u dhiska dalka waayo ka qayb galintii hadda sanadkii ugu dambeeyay waad arkaysaa isbedelka yimid Soomaaliya hadda 2020 waxaan u maleynaa in cageeda isku taagayso waana ka qayb galintii dhalinyarada laga qayb galiyo siyaasadana sabab u noqotay maadaama aan sida la rabo aan looga qayb gelin sababtoo ah dhalinyaradu waa laf dhabarta bulshada saan wada ognahay boqolkiiba 75 maanta dalku waa dhalinyaro marka waxa ku muuqan karto inay qayb libaax ka yihiin dhalinyaradu taa waxa isleeyahay dhalinyarada door kuma aysan lahayn hadda ka hor laakiin waqti xaadirkan door yar bay ku leedahay way dhalinyaradu waa seef laba gal leh dhanka xumaantana waa loo adeegsan karaa dhanka wanaagana waa loo adeegsan karaa wax walba oo la rabo in la sameeyana waxa qabta waa dhalinyaradu waxay uga qayb qaadan karaan dhan walba waxay noqon karaan waxay ka shaqeyn karaan amniga waxay ka shaqeyn karaan bilicda iyo dib u soo celinta wadanka waxay ka shaqeyn karaan xagga aqoonta oo dhalinyaro wax barata hadii la helo dadkooda si volunteer mar walba dhalinyaradu waxay ku shaqeyn kartaa macnaha barnaamij volunteer oo ku shaqeyn karaan waxay qaban karaan wax ayna qaban karin odayaasha iyo haweenkaba odayaashu wax walba oo qas iyo lab oo wadankan ka dhacayaga sabab ah waxa laga yaabaa inay isku haystaan beel iyo beel dhalinyaro cunug waxaad arkaysaa wiil dhalinyaro ama gabar dhalinyaro oo aqoon leh oo laga hormarnaa mid aqoon lahayn oo la leeyahay kan waa ree hebel dib u celi tan ku soo celi sidaa daraadeed odayaasha waa caqabada ugu weyn ee heysata wadankeena Soomaaliya